بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان خارج شرفت لي ميل كسو دنيا دافيد aad ka joogtaan waa walaalkiin Khadriyo oo idin la waacana wanaagsan ku soo dhawaada gacmo furan fadlan hadii aad nagu cusub tahay waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe noo saarto adigana daawanaya hadii aad hore subscribe noogu saarteen aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay waayahay maanta waxaan martin noogu YouTube-keena Khadriyo qof baraha bulshada caanka ah oo taqaanaan qofkaasi qof kale ma ah waa kinsiko salaana khayrta bal ku soo dhawaad markii horeysa gacmo furan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي مالك استعدونك كجوكتا وكينسيكي وإذن له اسكو سو نقد وناكسن أو حيسا له markay maqlaan asxaabtu CK waxaan niyadooda qalbigooda ku soo dhacaya reaction videos waaya hadaba ma jiraan waxaan ka ahayn reaction videos oo aad qabatay CK ama wax kale oo kugu dheer reactionka reaction kaliya kuma ekiye vlogyaan sameeyaa maxaa la yiraahdaa waa safraa filmaana sameeyaa laakiin sanadka hadda u dambeeyay waxa xooga noo saarnaa wax cusub ee la yiraahdo jafow iyo reaction waaya reaction horta ereygaas af Soomaali maaha waa English ma noo sheegi kartaa macnihiisa aniga iyo daawadayaashaba waxaan jeclaanay inaan ogaano macnihiisa ereygaas reaction waxa laga wado horta waxa la yiraahdo reaction waa English waa erey English ah Soomaali markii loo bedelo wuxuu noqonayaa ficil celin ama falanqeyn marka in has reaction laga bixiyo ama fal celin lagu sameeyo ama la falanqeeyo waxaan ahaa ninkii ugu horeeyay ee Soomaali has reaction ka bixiya ama falanqeeya aan kula yar kaftama saaxiib soo ma jirin markii qofkii ugu horeeyay ee fal celin ka bixiya hees Cabdigood soo Cabdigood kaaga ma horeen soo ma oran karno Cabdigood ayaa kaaga horeeyay fal celin macnaha waxaan ka wadaa Soomaalida af Soomaaliga ku hadasha ee YouTube-ka joogta Soomaalida af Soomaali ku hadasha ee YouTuberada ah ee YouTube-ka leh oo reaction bixiya ninka ugu horeeyay ee hees falanqeeya ama fal celin ku sameeya ama reaction ka bixiya ee fanaan ka hadla aniga ayuu ahaa صح waan garanay waxa tahay qofkii ugu horeeyay ee YouTuber ah ee hees fal celin ka sameeya ama reaction waan isla garanay midaas waayahay hadaba xilli ma ayaad bilowday reaction-kan ama fal celintan inaad sameyso waxaana bilaabay 2 sano iyo bilooyin ka hor waxaana ku bilaabay video uu ila daadihinayay saaxiibkay halkan ka salaamay Yacka bin Ciise videogaas ciwaankiisa wuxuu ahaa maxay fanka ku joogaan muxuu fanka ku joogaa macnaha videogaas ciwaankiisa wuxuu ahaa maxay fanka ku joogtaa muxuu fanka ku joogaa ha ahaado ciwaanka maxay fanka ku joogtaa muxuu fanka ku joogaa balse videoga waxa lagu falanqeynayay wuxuu ahaa fanaan maxay fanka ku joogtaa muxuu fanka ku joogaa waa iska dareemi kartaa waaya waan garanay xilliga aad soo bilowdo 2 sano iyo dhowr ka bilood ee reaction-ka bixinayso ilaa iyo up to now ma jiraan gabar fanaanada ama wiil fanaana ama qof kale bilaadam ah oo aad khalad ka gashay hadii uu jirana qalad noocee aad ka gashay ma raali gelisay waqtigaas ka soo bilow ilaa iyo hadda intaas reaction aan bixinayay waxaan qalad ka galay 2 fanaan oo gabdha ah Shaadiye Sharaf iyo Kuwintaasha labadoodana waa aan raali geliyay qaladkan ka galay wuxuu ahaa anoo reaction ka bixinaya ayaan wax yariis ama teedkan furta waa ku fogaaday labadoodana waxaan raali gelin ka bixiyay isla waqtigaas oo aan ka bixinayay reaction-ka adiga isla bishaas gudaheeda ayaan raali geliyay oo aan dareemay inaan ku fogaaday waaya hadaba 2 sano iyo bilooyinka aad reaction-ka bixinaysay ma jirta qof ama fanaan ama fanaanad aad xaasiday oo aad u xaasiday siyaabo kala bedelan ama aad u xaasidid adigu waxay doonaa noqoto noocay doonaa noqoto aad adigu xaasiday ma jirta 2 sano iyo bilooyinkaas oo aan reaction bixinayay ma jirin qof aniga aan xaasiday oo aan u xaasiday kan kama soo jeedo magaalada ka soo jeedo Muqdisho meel kale oo ka soo jeeda ama qabyaaladnimo ha ahaato ama cunsurnimo kale ha ahaatee qof aan xaasiday horta ma jirin inta reaction ka bixinayay
waxaan reactionka u bixinayay qaab kaftan ah oo qofka aan kula kaftamayo oo totally dadka kale ka duwan iyo qofkaas in aan u qiro wixiisa ama hargeysaha ka soo jeedo ama muqdisho ka soo jeedo ama jigjigaha ka soo jeedo qofka waa jafaayay waa la kaftamayay laakiin qofka ma xaqireenin oo libintiisa waan siinayay waayahay imse video ayaad maalintii samayn kartaa halkii maalinba imse video ayaad soo gelin kartaa 6 ilaa 5 video ilaa 4 video aan maalin kasta soo geli karaa dabcan shaqadaada ugu badan waxa weeyaan waa reaction video inaad samayso oo aad heesaha ka falceliso haddaba ma noo sheegi kartaa qofka ugu waqtiga badan ee video qofka sameeya videoga ugu dheer ama ugu waqtiga badan inta reaction bixiso ninka ugu waqtiga badan ah videoyadu soo geliyo maxaa kalifay mataqaanaa waxaa kalifay qaabka aniga uu sameynayo waa qaab comedy ah waa qaab videoga aan dhex galayo oo aan stop u dhahayo videoga sakimo waayay xilli ma ayaad Yurub soo gashay 2014 markaa Yurub soo galay YouTube-ka ka hor xageed joogtay ama maxaad qaban jirtay intaad YouTube-ka ku soo biirin ka hor waxaan joogay Facebook waxa ii furnaa page maxaan ka qabanayaa meeshaas video short films ah oo comedy ah su'aasha kale aan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo taageerayaashaada maxay ku yaqaanaan ma jira magac gooniha ay ku yaqaanaan kulli boqorka reactionka maxaa kalifay waqtigan gelinoyaa waa ka qoslinoyaa video markii la duubo waan ognahay dadku waxay daawadaan video la soo habeeyay oo la soo jarjaray oo la soo qurxiyay oo baraha bulshada la soo dhigay laakiin sidaan ognahay videoga waxa ku baxay waqti fara badan ilaa imsa daqiiqo ayay kugu qaadan kartaa inaad hal video edit gareyso 10 minutes 10 daqiiqo oo kaliya والله وقتي آدو ير مركا دبعا halkii saac waxa sameyn kartaa video aad u fara badan ilaa mise video ba sameyn kartaa halkii saac dabcan hadii 10 daqiiqad halkii video ku edit garanayso kara 6 ilaa 7 video way hadaba su'aasha kale aan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo CK ma jiraan luqado kale oo aan ka ahayn af Soomaaliga oo ku hadasho ama aad taqaano lahjada qaraabada lahjada kale qaraabada xitaa waa ku hadlaa lahjada kale qaraabada su'aasha kaliya ee jeclaan lahayd inaad kaga tagto daawadayaasha iyo aniguba ama waanada kaliya jeclaan lahayd inaad siiso intayna gabagabayno waraysigeena ama ku soo gabagabayno maxay noqon lahayd bal waxa idin sheegaa meel kasta adduunka ka joogtaan always waxa sameeysaa kaliya qalbi furnaaw qalbi nadiifnimada waa waxa ku raacinaya moor inta tahay in ka badan inaa heshid waa hadal miisaan weyn xambaarsan macna weyn xambaarsan kaliya qalbi furnaaw hadduu qalbigaagu nadiif yahay wax ka xumaanaya ma lahan waxaan filayaa daawayaashu dhammaan inay ereygaas iyo waanada ka qaadan doonaan waraysigeena maanta intaasaan ku soo gabagabaynaa kaasna wuxuu ahaa CK oo marti noogu ah YouTube-keena Khadariyo aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaa waqtigaaga qaaliga ee noo hurtay iyo waraysiga qiimaha badan ee nasiisay ma noqon doono videogii ugu horeeyay ama waraysigii ugu horeeyay ee aan kula yeerno CK mar walba oo noo joogta waxaan filayaa mar walba oo ku baahnaa inaan ku heli doono fadlan haddii aad ka heshay videogan waxaa samaysaa la wadaaga saxaabtaada soo comment gare haddii aad jeceshiin video sidan oo kale ah waa insha Allah waa inoo soo badan doona let me know qaybta commentiga fikirkiina igu reeba haddii aad hore subscribe noogu saarin waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe noo saarto aad iyo aad baad ugu mahadsantahay daawashada videogan aad daawanaysid waa walaalkiin Khadariyo idin leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.